kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xulka wararka Bollywoodka. Qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka xulka wararka Bollywoodka waxaa ka mid ah adirishada amiiqa la jilay filimka Tugish of Hindustan oo shaaca laga qaaday. Geeridii Abiis Akshay Khanna kadib ayuu soo bandhigay aragtidiisa koowaad filimka Maam. Koos kooban ayaa laga soo bandhigay filimka Duplicate oo Salman Khan hogaamiyaha ka yahay. sidoo kale Akshay Kumar ayaa madaxweynaha dalka Hindiya wuxuu guddoonsiiyay abaalmarinta dooraha ku wanaagsan International Film Awards wuxuuna ku qaaday filimka Rustom. qodobadaas iyo waliba qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaa ku daawan doontaan barnaamijka xulka wararka Bollywoodka. daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka xulka wararka Bollywoodka. Amiirqani Amitabh Bachchan sanadkii hore ayay saxiixeen sameynta filimka Tugish of Hindustan, waxaana xilligaas la sheegay in filimkan duubistiisa la bilaabi doono bishani May, laakiin adirishada filimkan oo lala soo saxiixan ayaa shaqadiisa dib u dhac ku keentay. war rasmi ah oo ka soo baxay xarunta Yash Raj Films ayaa lagu xaqiijiyay in adirishada Fatima Sana Sheikh ay la hogaamin doonto Amiirqan filimka Tugish of Hindustan. Fatima waa gabadha Amiirqan filimkan dangal la sameysay oo uu aabbo ugu matalay haatana filimka Tugish of Hindustan adirisha ay u noqon doontaa. sidoo kale shirkadda Yash Films waxay shaaca ka qaaday in filimka Tugish of Hindustan duubistiisa la bilaabi doono 1 bisha June ee ku soo fool leh. filimka Tugish of Hindustan waxaa director ka ah Vijay Krishna Acharya oo horey u sameeyay filimka Dom 3. atooraha caanka Akshay Khanna ayaa dhanka shaqada ku soo laabtay wuxuuna soo bandhigay aragtidiisa koowaad filimka Maam. Akshay Khanna dhawaanaan wuxuu la murugaysanaa geerida aabihiis ku timid superstar Vinod Khanna ama Mastana, laakiin shaqadiisa Bollywoodka ayuu dib ugu soo laabtay. filimka Maam waxaa hogaamiyay ka ah adirishada weyn Saradev, halka Akshay Khanna uu ku jilayo askari mayl adag oo loo xil saaray baarista kiis ay ku lug leedahay Saradev. filimka Maam waxaa la daawan doonaa 7 July ee isla sanadkan. Akshay Khanna sanadkii hore ayuu Bollywoodka dib ugu soo laabtay wuxuuna markaas door laadar ah ku matalayay filimkii Tashum oo ay hogaamiyaha ka ahaayeen Varun Dhawan iyo John Abraham. waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay gooskooska sida weyn loo wada sugayay ee Duplicate ee Salman Khan hogaamiyaha ka yahay. Salman Khan uu soo laabtay mar kale ayuu ciidka la imaan doonaa filim kale oo xiiso leh sida la wada filayo gooskooska kooban ee Duplicate. Salman Khan ayaa mar kale ku qiirigelin doono. filimkan waxaa door muhiim ah ku leh Sohail Khan oo ah walaalkiis ka yar Salman Khan, waana filimka ugu hadalhaynta weyn ee sanadkan, waxaana la daawan doonaa 23 June oo ku beegan isbuuca Ciidul Fidriga. superstar Akshay Kumar ama Mr. Bond ayaa ku guuleystay abaalmarinta International Film Awards qaybta atooraha ugu wanaagsan. Akshay Kumar ama Mr. Bond wuxuu atooraha ugu wanaagsan ku qaatay filimka Rustom oo ku soo bandhigay jilin cajiib ah, wuxuuna ku qaatay in loo magacaabo aktarka ugu wanaagsan gudaha Hindiya kuna guuleystay abaalmarinta qaaliga International Film Awards. Hiladi ayaa waxaa la socday xaaskiisa Deepika Khanna iyo caruurtiisa. daawadayaal barnaamijka xulka wararka Bollywoodka waa ninka intaas waxaan ila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. kulanti dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo.